asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa khamiis waana 13 bisha 8 ee agosto sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku wadaago arrin cusub oo laga yaabo inay Soomaalida qusayso oo ka soo baxday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka arrintan waxay tahay guurka sida been abuurka ah Mareykanka la isugu keeno oo la kala gato shalay wasiirka cusub ee cadaaladda Todd Blanche waxa uu magaalada New York uga dhawaaqay in 11 qof lagu soo oogay dacwado la xiriira in si guur been abuur ah oo la kala iibsanayo ilaa iyo 1,000 qof oo kala duwan ay Mareykanka ay ku keeneen haddaba arrintaasi ayaan rabaa inaan idin wadaago sidoo kalena waxaa jirta ciidamada ICE oo hadda loo ogolaaday gloves koronto ama maasa leh in ay adeegsadaan oo qofka marka lagu qabto maasadaasi gloveskaasi lagu taabto isla markiiba uu dhulka ku dhacayo haddaba arrintaasi sidee u shaqeynaysaana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada wasiirka cusub ee cadaaladda ee dowladda Mareykanka Todd Blanche ayaa maalnimadii shalay ahayd waxa uu New York uga dhawaaqay in dacwado lagu soo oogay 11 qof oo muwaadiniin Shiineys ah asal ahaan Shiinaha ka yimid laakiin muwaadiniin Mareykan hadda ah kuwaasi oo ku lug lahaa musuqmaasuq ballaaran oo la xiriiro guurka been abuurka ah ee la kala gato oo Mareykanka lagu yimaado waxa uu sheegay in 11 qof oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha laakiin muwaadiniin Mareykan ah ay ahaayeen isla markaana ay jireen kooxo fara badan oo isku xiran yihiin oo ay ka wada shaqeynayeen si dadka Shiinaha guur been abuur ah Mareykanka loogu keeno waxaana wasiirku uu sheegay 11 qof in hal qof oo green card uu ku jira laakiin 10 kale muwaadiniin Mareykan ay yihiin in ilaa iyo 1,000 guur oo been abuur ah oo kala duwan ah ay Mareykanka ay ku keeneen dadkaasina marka dambe ay green card helayaan kadibna muwaadiniin Mareykan ay noqonayaan waxaana uu sheegay in application been abuur ah ay soo u dirsadeen waaxda immigrationka ee USCIS ta guurka ay ku yimaadeen gabi ahaanba uu ahaa mid been abuur ah haddaba waa kan isagoo arrintaasi ku dhawaaqaya wasiirka cusub ee cadaaladda Todd Blanche. Today we are announcing the arrests and unsealing of an indictment out of the Southern District of New York charging 11 individuals for allegedly overseeing an extensive decade-long marriage fraud scheme involving more than 1,000 sham marriages between Chinese nationals and United States citizens, and then the submission of fraudulent applications for green cards. This is one of the largest marriage fraud prosecutions in United States history. This scheme was not a quick fly-by-night operation, but rather a years-long, multi-million-dollar cottage industry to criminally assist people who would not or legally could not otherwise become citizens of the United States. The men and women who facilitated this scheme were all naturalized citizens originally from China and one green card holder. wasiirka cadaaladda waxa uu intaasi ku daray in dadkan ay ahaayeen kooxo isku xiran waxa ayna ka koobnaayeen dad uu ugu magac daray facilitators dadka gacanta ka geysanaya qofka muwaadinka ah ee Mareykanka jooga iyo qofka kale ee Shiinaha jooga ee guur ahaan loogu dacwoonayo isku xiraya waxa sidoo kale jiray in ay jireen dad iyaguna recruiters ah oo soo qorayay dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ee doonaya inay lacag qaataan qof Shiinaha joogana guur ahaan oo been abuur ah ay Mareykanka ay ku keenaan marka dadka facilitatorska ah oo gacan ka geysanaya isku xirka arrintan waxa ay shaqaaleysiiyeen dad qareeno ah oo gacan ka geysta sidii dhinaca immigrationka ay gacan uga siin lahaayeen kuwa dhinaca canshuuraha u diyaariya taxiga oo la xareeyo sanadku markuu dhamaado iyo kuwa kale oo isku mehriya dhammaantoodna dadkan waxa ay ku mideysnaayeen in qofkaasi guurka sharci darada ah oo been abuurka ah Mareykanka lagu keeno waxana uu yiri dadkan dhammaantoodba ka qayb qaatayaal ayay ahaayeen oo arrintan waa ay ku wada jireen waa kan mar kale wasiirka cadaaladda oo arrintaasi ka hadlay. As alleged, some of the charged defendants acted as facilitators who orchestrated the marriage fraud scheme, pairing foreign nationals seeking immigration status with United States citizens willing to participate and engage in a sham marriage. These facilitators employed attorneys, tax preparers, and marriage officiants. Some of the other charged defendants acted as recruiters by finding and recruiting United States citizens to participate in the scheme, and other defendants
acted as officiants, officiating dozens of these alleged fake marriages. wasiirku marka waxa uu intaasi ku daray qaabka ay arintan u shaqaynaysay waxa uu sheegay in dadkan dhinaca social mediaha kooxaha facilitatorska ay ku xayeysiinayeen iyo sidoo kale meelo kale especially dadka Shiinayska ayaa lagu bartilmaameedsanayay waxana uu sheegay kooxaha facilitatorska oo dadka Mareykanka jooga ee muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa Shiinaha jooga isku xiraya qofka Shiinaha jooga ee doonaya in Mareykanka uu yimaado oo qof Mareykana guur been abuur ah ugu dacwoodo waxa laga qaadayay lacag $100,000 Mareykanka qofka muwaadinka Mareykanka oo halkan jooga oo isaguna u dacwoonaya qofka Shiinaha jooga $30,000 ayuu qaadanaya qofka muwaadinka Mareykanka ee halkan jooga markaas kadibna kooxaha recruiterska oo iyagu soo helaya dadka muwaadiniinta Mareykanka ee doonaya qof Shiinaha jooga inay u dacwoodaan isagana $5,000 ayaa la siinayay markaas kadib waxa uu yiri xaflada been abuur ah ayaa la sameynayay maqaaxiyo ayaa lagu sameynayay sawirro ayaa la qaadayay sida halkan aad ka aragtaan iyadoo waliba meel cidla ah la isku la mehrinayo dadka oo faraanti la isugu galinayo markaas kadibna xafiis iyaga xiriir la leh ayay tagayeen waxana loo diyaarinayay applicationadii USCIS loo gudbin lahaa iyo qaabka interviewga ay u marayaan kadibna heshiisyo dhinaca guurka ayaa la kala saxiixanayay oo qofkan hadii uu dhinto iyo waxyaabahaas la xiriira hantida sida loo kala qaybsanayaa caruur hadii la dhalo sida waxyaabahaas oo idil oo been abuur ah ayaa la kala saxiixanayay ayuu yiri sidaas ayaana Mareykanka lagu imaanayay waa kan wasiirka cadaaladda oo mar kale arintaasi ka hadlay. The way that this scheme allegedly worked is the facilitators use social media and other forms of advertising to market fraudulent immigration services to foreign nationals, primarily from China, and Chinese nationals would pay these facilitators as much as $100,000 for assistance in obtaining a marriage, which then allowed them to apply for a green card. The facilitators also paid willing U.S. citizens as much as $30,000 to engage in the sham marriage with the foreign national. Now, often after these phony ceremonies, defendants would stage images of families at restaurants to create the appearance of a legitimate wedding. And some of the defendants also facilitated sham marriages overseas in China. After the marriages took place, the actual ceremony, the then married couples would visit a local office affiliated with the scheme, sign forms for submission to the U.S. Citizenship and Immigration Services, learn about the USCIS interview process to apply for a green card, and then execute prenuptial agreements, which, not surprisingly, given the allegation these were sham marriages, waived their rights to share in the other's estate upon death, child support, and other claims in marital property. wasiirku waxa uu sidoo kale intaasi ku daray dadkan isku xiraya qofka Mareykanka jooga ee muwaadinka iyo qofka Shiinaha jooga ajnabiga ah guurka been abuurka Mareykanka lagu keenayo waxa loo sameeyay yiri sawiradaasi bangi iyagu wada leeyihiin ayaa loo furayay mobiladooda ayaa bangiyada ababkaasi loogu soo dejinayay markaas kadibna waxa loo xareynayay applicationka been abuurka ah oo Mareykanka ay ku imaanayaan waxana uu sheegay arintaasi inay tahay mid sharci darro ah waxa uu yiri qofku inuu si sharciya ku deganaado Mareykanka ama dhalashada Mareykanka uu qaato waxa uu yiri arintaasi waa mudnaan gooni ah oo qofku helo laakiin waxa uu yiri hadii si qaldan looga faa'iideysto immigrationka arintaasi waxa uu yiri wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha gabi ahaanba ma yeeli doonaan oo baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa. The facilitators of the scheme would then prepare and submit fraudulent green card applications and work with the couples through the immigration process, submitting photographs, opening joint bank accounts, mobile phone accounts, all to obtain green cards to allow them to stay in this country. But that's illegal. These charges and the indictments now unsealed, they show how far people will go to cheat our immigration system. Gaining American citizenship and legal status to reside in this great nation is a sacred privilege, and we will ensure it is always done in accordance with the law protecting our communities and national security. These schemes have real costs. They rob our country of its ability to know who should be and should not be allowed in America. And this department and the Department of Homeland Security will not stand for this,
And I think this prosecution and the hard work that went into it with the agents and the prosecutors show that. waxyaabaha qofka dhalashada Mareykanka loogala laaban karo waxaa kamid ah markiisii hore uu Mareykanka imaanayay qaab been abuur hadii uu ku yimid ama interviewada uu been sheegay in sharciga lagala laaban karo waxaa jirtay bishii September 19keedii ilaa 28keedii ee sanadkii 2025 in Minneapolis iyo St. Paul waaxda USCIS howlgal noocan oo kala ay ka sameysay waxaa jirta xitaa gabar Soomaali ah oo ila soo xiriirtay xilligaasi oo tiri anigoo shaqo ku jira ayaa waxay soo wacday laba qof oo yiri immigration ayaan ka soconaa gurigaada hortiisa ayaan taaganahay no imaw waxayna sheegtay dacwad ninkeeda inay u xareysneed marka baaritaankaasi su'aalo fara badan ayaa gabadhaasi la weydiiyay marka baaritaankaasi hadda guud ahaan wadanka ayuu ka socdaa guurka been abuurka oo Mareykanka lagu yimaado ayaana la baaraya hadii arintaasi marka hadda aad ku lug leedahay oo qof lacag intaad ka qaadatay dacwada ay ku xareysan tahay ama hadda kadib aad doonaysay arintaasi ka digtoonow baaritaankii Minneapolis iyo St. Paul waxaa lagu soo helay 275 kiis waxaa ku jirtay sidoo kalena qof xaas ku leh nin Soomaali oo Minneapolisna xaas ay u degan tahay Swedenna ay mid u degan tahay shahaado been abuur ah oo dhimashana xaaskiisa Mareykanka oo 5 caruur u haysa sidoo kale Kenya ka soo sameystay marka arintaasi waa arin hadda jirta guurkii sida been abuurka ah Mareykanka la kala iibsan jiray oo Mareykanka lagu imaan jiray hadda waa la isaga daba yimid ugu dambeyntii ciidamada ICE ayaa waxa ay isticmaali doonaan gloves koronto ama maasale ciidamada ICE waxaan ognahay markii howlgallada kala duwan ay wadeen in iyagu wax awood xad dhaaf isticmaalaya dad fara badan ay dileen waxa kamid ahaa Rene Good iyo Alex Brady oo Minneapolis ay ku dileen laba qof ay ku dileen gobolka Texas qof kale oo ay ku dileen Maine marka arintaasi si looga digtoonaado oo isticmaalka awoodda xad dhaafka ICE ay meesha ka baxdo ayaa ICE waxa ay soo iibsadeen gloves kan la yiraahdo Zap gloves amaba magacooda loo yaqaano Generated Low Output Voltage Emitter ayaa la yiraahdaa marka qofku hadii uu dhar gashan yahay ama tintiisa looga taabto maasadan ma qabanayso gloveska ICE button ayuu leeyahay buttonkaasi marka ay shidaan qofka marka ICE ay xirayaan hadii uu diido in la xiro uu is adkeeyo way activate gareynayaan buttonkaasi ay taabanayaan kadibna qofka jirkiisa meel ka banaan ayay ku taabanayaan 33 second gudahood qofkaasi dhulka ayuu ku dhacayaa oo ma istaagnaan karo wax calaamadana kuma sameynayso qofkana ma dhaawacayso sidaas darteed xaalad caafimaad uma geysanayso qofka isla waxana sidoo kale jirta sida sharciga hadii loo isticmaalo oo aan muddo aan lagu haynin qofka jirkiisa inaysan wax khatar aysan u geysanaynin 20 milyan oo dollar ayaa ICE ay kala soo baxayaan wasaaradda amniga gudaha gloveskan waxana sidoo kalena ay ICE ay sheegtay inay meesha ka baxayso hubkii ay adeegsan jireen amaba sidoo kalena paper spray ee adeegsan jireen qofka waxyaabaha indhaha looga buufiyo dadka aan loo isticmaali karin waxa kamid ah dadka da'da ah caruurta haweenka uurka leh iyo dadka baahiyaha gaarka qabo marka ICE hadda gloveskaasi korontada ama maasada leh oo qofka marka lagu taabto isla markiiba uu dhulka ku dhacayo ayaa ay adeegsanayaan muuqaalkan aad arkaysaan kambaniga soo saaray ayaa isagoo dad ku tijaabinaya sameeyay marka sida aad aragtaan qofka isla marka lagu taabto oo jirkiisa meel ka banaan lagu taabto isla markiiba dhulka ayuu ku dhacaya marka ICE waxay doonayaan hadda in ay gloveskaasi ay helaan iyadoo wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay hadda ciidamada ICE dhammaantoodba kaamarooyinka sida kuwa booliska ay xiran yihiin oo kale in loo qaybiyay oo hadda kadib wax kasta oo howlgal kasta oo ay sameynayaan ay duubi doonaan arintaasna waxay kamid ahayd heshiiskii labada xisbi markii lacagta wasaaradda amniga gudaha miisaaniyadda loo ansixinayay waxyaabaha dimuqraadiyiintu ay dalbanayeen in kaamarooyin loo xiro dhammaanba ciidamada ICE marka howlgallada ay sameynayaan maxaa yeelay waxaa jirtay dad fara badan oo dhibaateeyeen markaasina ciidamada ICE la ogaaday howlgallada sameynayay inaysan wax kaamarooyina aysan u xirnayn aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo